dadka hoggaanka waa lagu daydaa. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yidhi waxaa idinkugu sugnaatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dayasho inaad isaga ku dayataan. Abubakar yuu ku dayanayay rasuulka, cumar abubakar iyo rasuulku isagana ka tusaale qaadanayay. Marka waa sidaas, qofka ka horeeyo oo madaxdiisa ayuu ku daydaa. yacni tusaale ahaan cumar bin khataab waa wareegi jiray banaanka baadiyaha magaalada wareegi jiray si uu u arko dadka dhibaataysan, waryaha xaalkiisu caawa yacni uu xun yahay. maxaa yeelay isagay mas-uuliyad ka saaran tahay. u fiirso, habeen uu arkaa la yidhi islaan maaragtay meel baadiya dab uga shidan yahayoo weel yar bahalkii uu saarayaho, markaasuu uu u yimido asalaamu calaykum yaa ahdudoo see tihiin. markaasay dhaheen, islaantii baa waxay tiri allahu baynana wa bayna cumar. isagii eedays cumar ahaan uma taqaano, ilaahay baa noo kala qaadaya annaga iyo cumar. وعمر muxuu ka hadleeya yatawallaa amrana uma yakfalu cana. waxay tiri inta xukunkeena qaatay oo qabsaday mas-uuliyaddeena uu iska keen hilmaamay, isaga keen tagay. war maxaa dhacay? canugan ayaan ooynaya. canug baa marka ooynaya, waa seexin la ahay tiri. ma cuntada siis? cuntaba kuma jirtay tiri, biyo keliya ii saaran meeshaan, biyahaasaan rabaa inaan afka ugu dhadhabciyo si uu ugu seexdo. intuu orday ayuu wuxuu soo qaaday meeshii baytulmaalka, inta tago jawaan soo saartay. ninkii la socday wuxuu yidhi anigaa qaadaya, ilan madax waa ninkaan. anigaa qaadaya yuri, anaa kaa qaadaya yaa amiir almu'miniin. inta ku xanaaquu kala tuuraa la dhaha, anta taxmalu wisri yowma alqiyaama. war aakhirana ma adaa qaadayuu yidhi culayskayga, hadda waa anaa kaa qaadayaad ileedahay. madax marka ilaahay ka cabsanaysa, ilan institutions laga baqo. fiiri, gaalada institution ay ka baqaan ay haystaan, iyo shacab nool oo aaminsan xuquuq inay leeyihin. qofka markuu og yahay xuquuqdiisa inay dhowrsan tahay, waa hadla banaanku soo. gaalada marka Yurub iyo westernka, gaalo markaan kuleeyahay reer galbeedka, waxyaabaha qaar ma samayn karaan. haddii lagu arkana qofka hore uu iskaga casilah, waayo institutionkiyaa qabanayo ko, iyo shacabkiina waa ka baqaa. laakiin muslimka cumar bin khataab hadda aan kuu sheegay, ilaahay uu ka baqaa. wuxuu leeyahay anta taxmil wisri yowma alqiyaama. ma adaa fiiri, isagana wuxuu ku dayanayay abubakar iyo bahalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. yacni abubakar maalin walba inta baxaa subixii salaada markuu dukado islaam buu banaankuu aadi jiraa la yidhi. guri meel yar oo bahalkii buul yar inta galo kusoo daahi jiray. markii dambe inta la daba raacay oo la fiiriyo oo la arkay islaan ayaa oo camoolaha indhoolaha ayuu inta meeshana ka xaaqo, weelasha u dhadhaqo, waxna u kariyo. waa amiir almu'miniin. so markii dambe waxaa atcabta man jaa bacdak yaa amiir almu'miniin. ragga kaa dambeeya waa daalisay wallah. ilan ma lagu waxaa samaynaysid wax la samayn kara ma ahan waay. fiiri, cumar yuu ku dayday, abubakar yuu ku dayanay. marka ninka mas-uulka ah waxaa la rabaa dadka inay ku daydaan. wanaaggana waa kaga dayanayaan, xumaantana waa kaga dayanayaan. waxaa jira rule of the law iyo rule by the law. waxaa la yidhaha sharciga in qof lagu xukumo iyo sharciga in loo sinaado waa kala yihiin. yacni madaxweynaha isaga wax walbo, qof walboo sharciga ka shaqeynaya, kan maxkamadda, kan bahalkii, kaas kulli asagaa magacaabaya, isagay u shaqeynayaan. marka adiga sharcigaa lagugu xukumayaa, laakiin isla sharcigaas adiga lagugu xukumaya madaxweynaha ma qabanayo. aawe marka nabadda xaggay ka imaanaysaa? xabad ma dhacayso, laakiin nabadna ma jirto. waa qol gaas uu ka buuxo, laakiin weli taraqi aan lagu shidin oo kale waa. yacni xabad weli ma dhicin, laakiin fikiray u baahan tahay. waa nabad ma jirto. laakiin dadka qaar baa marka u haysta nabad inay jirto just because qax iyo xabad ma jirto. no, ma jirto. nabadda waa fundamental, waa ka weyn tahay
degenaanshaha yaroo bahalkiioo kor dadka ay uga jeedaan waa ka weyn tahay. nabaddu waxay u baahan tahay cadaalad. cadaaladdu waxay u baahan tahay institutionska waxay u baahan yihiin in maaragtay la isticmaalo. isticmaalka waxay u baahan tahay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo guddoomiye baarlamaano ilbaxa wax bartay, ilaahay ka baqaya, legacyna ka fikiraya, taariikhdooda ka fikiraya.